sheeqana gabadha waxay leedahay hooyo waxay idhaahdaa aabbo wax ma u diri kartid muusan kusoo korin laakiin ani waxaan dareensanahay yuusan isoo korin hadduu rabo laakiin inuu idhalay marka sheekhana alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alay wasalam arrintaasi waa caa'ilo u baahan runtii in la dhex galo yacni gabadh iyo hooyadeed ka wada hadlaya aabbihii ku dhalay waxba ha u dirin iyo gabadhi oo dhahaysa aabbahay waa uu idhalay xaq buuna igu leeyahay waxaan horta ka codsan lahaa gabadhaasi inay cid alla cidda iyada iyo hooyadeed si wanaagsan xidhiirhkooda u wanaajin karta iyo calaaqaadkooda inay la kaashato ama aabbaha ahaa xaq buu kugu leh sida iyo hooyada xaq ay kugu leedahay ayuu aabbahana xaq kugu leh aabbaha haddii aad maanta wax u tari karto waa inaad u tarto wey hooyadana waxaad ku ateecaysaa oo aad kaga amar qaadanaysaa wixii ilaahay amarkiisa ah yacni wixii taaca ah laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marka lagu leh waxaa weeyaan inaad aabbaha xidhiidhiso ilaahay baa ku amray hooyadaana waxay ku leedahay waxba ha u dirin saas daraaddeed xigmaddeedana adigaa lagaa doonayaaye haddaad gacanta wax ku hayso u dir aabbaha biidni illaahi tabaaraka wa tacaala hooyadaana ka dhaadhici inay ogaatana qasabba ma aha ina aabbaha adigu xuquuq gooni ah kugu leeyahay aabbaha marka aabbaha u dir biidnillaah hooyadana waxaan leeyahay u fiirso haddii aad tahay hooyo xikmad leh oo caaqilada oo tarbiyada wax ka garanaysa oo ilmaha ilaalinaysa iska daa inaad ka hor istaagtee waad ku dhiirigelin lahayd gabadhaadaad bari lahayd inay aabbaheed xidhiidhiso adigu ma jeclaan lahayd in lagu gooyo isdhig bal meesha aabbaha adugu kaba soo qaad gabadhu inay aabbaheed la joogto ma jeclaan lahayd inuu gabadha aabbaheed uu kula dagaalamo hooyadaa wax uma diri kartid ii sheeg qalbigaaga waxa ku jira ii sheeg waxaad dareemi lahayd ii sheeg ma nabigeenna sala allahu alay wasalam laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsih ilaahay oga baqarintaa gabadhana tarbiyada ha ka hadlaynin gabadha bar iska daa aabbaheede inay qaraabada xidhiidhisa bar inay sadaqada barata bar inay sadaqa bixinta barata ayaday dan u tahay adigu midda kale naftan kugu jirtaa intay leeg bay joogi doontaa ma ballan qaadaysaa odaygaasi inuu aad ka hormarayo inuu kaa dambayn doono oo adigu aad ka hadhi doonto aakhare hadda isu timaadaan wax jawaaba ma u haysataa ka xisho alla subxaana wa tacaala u daa gabadha yarta ah aabbaheeda xidhiidhiso midda kale haddee aabbaha hadduusan adig ku shukaansanin gabadhu ma dhalan lahayd horta waaba su'aale hadduusan ku shukaansanin adiga waxaa laga yaaba markuu shukaansanayey inaad diidda kuma rabo waan ku rabaa maya waan ku raba kuma inay maanta dhan ma og tahay sababka koobaad inay gabadhani adduunka timaado bacdallaahi inuu aabbuhu sabab u ahaa horta ma og tahay u daa gabadha aabbaheeda xidhiidhiso ilaahayna oga xisho subxaana wa tacala wallahu aclam jazaak allahu khayr jazaa